السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada igu xiran soo dhawaada meel bood midna daafeed ka joogtaan si walba oo is arag maqalkaygu idin soo gaarayo fadlan haddaad tahay saaxiib nagu cusub please subscribe-kaaga nagu dhiirigeli saaxiibada sida joogtada inoogu xiranna videoga ha inoo like gareeyaan dhammaantiina videoga like saara saaxiibo wanaagsan sida idinkoo kale inta noogu imaan doona maalin walbo walaashiin adinkeedin kaga baahan tahay inaad dhiirigelisaan wax walba u sameysaan aadaan ugu mahadsantihiin sida halkan maalin baad igula falgashaan caawa videogan marka idin soo duubayo xoogaa kasoo baxa daanka iyaga soo bax dhinaca dhan way xanuunayaan haddana waxaas leeyahay asxaabtada ka maqnaanin adikan i qiimeeya saaxiibayaal janalka at least 5,000 xitaa inoo gaarsiiya si saaxiibo badan halka inoogu imaadaanna waxaasoo dhan waxaa ku keeni karnaa inaad dhammaantiin like aa saartaan inta maalin walba sida fiican kommentayaasha fiican iisoo qortan aadaa ugu mahad celinayaan sidaa maalin walba ii garab istaagtiin waa idinkaga mahad celinaa saaxiibada maalin walba nagu soo biirina waxaa leeyahay aadaa u mahadsantihiin aan galna marka wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda wargeysada kubadda cagta ka faalooda wax ay ka qoreen hadda ka hormarno kooxda Manchester City war farxad la soo yeeraya sida wargeysada Ingiriiska ka soo baxay wariyaha caanka Fabrizio Romano soo qoraayo waxa leeyahay dambeedkii bidix ay suuqa ka raadinayeen gacanta ay ku soo dhigayaan maalmaha inagu soo aadan Manchester City xidigan Spanish waaye waa dhowr 20 jir Sergio waxaa la Spanish Sergio kama weynays alcamoon Sergio heblow allaha skillskiisi xoogaa waa soo fiiriyay waxaa leeyahay Man City ugu dambeyn 10 milyan ay ku heli doontaa xidig maxaa la yidhaahdaa Manchester City waa koox lacagta bixiso dad lacag laha iska leh wax ay lacag bixisa malahan aan aragna bal marka yarkii ay Chelsea ku garaaceen konton 62 milyan lagu qaatay kan 10 milyan ee Man City ku keeni doonto labada tare mid ka saameyn bato aan aragno halkaas uga soo gudbino Manchester City waxaan dul geysan saaxiibayaal kooxda Manchester United caawa ridiculous xaaladeeda ma fadhis ayaa leeyahay suuqeeda aad u kacsan yahay saacad markaa joogtidba war kale oo yaab laha ka soo baxay marka saacad kale joogtid war kale oo yaab laha ku soo baxay jamaahiirta Manchester United waxaa leeyahay baraha bulshada Twitter-ka hadii ay noqoto aad ayaa loogu jeexjeexay kooxda Manchester United markii heblow feedkii ninkii duqda ahaa 32 jirka ahaa maadaama ay doonteen heshiiskooda waa ay kansaleen waa ogeedeen in Rabiot ay Juventus ay ka doonteen Manchester United haddana waxaa leeyahay ka daro dibidal caawa Ismaaciil Sarr ay ka shidanta iyo Alvaro Morata ee waxay ka doonteen kooxda Juventus xaaladda Manchester United mid meeshan aan kusoo koobi karna ma ahan xaalkeedu waa allow sahal macnaha in kooxdan meel laga soo habaaray ma aqaanaan dhihi karaa aniga because hadii koob iyo Ismaaciil Sarr oo kooxdiisii ay ku maqan tahay Serie B in aad raadis adoo kooxda intaas la eg Manchester ahtaa waa cib Alvaro Morata waa xidig khasaaris badan Manchester United afkeeda hore wuxuu ka bedeli karaa mal Rashford kiinaba idin kaga dhaamaba iyo markuu idin soo kaco yarkii 9kii markuu idin soo kacaaba corona is dhihi karaan Alvaro Morata oo Chelsea ku falowobay oo Athletic Madrid iskaaga direysay ama oo Juventus ku joogo oo ma anfacayo Manchester daayirteeda ha aaminto akademiyadeedana ha ka soo baxsata ayaan dhihi lahaa halkaas uga soo gudubna saaxiibayaal wargeysada Manchester laga qoraayo waxaan dul geysiin kooxda Manchester City dib noogu celiyay waxaa leeyahay wargeysada ka soo baxa England waxa ay diideen ama waxa ay beeniyeen Bernardo Silva arintiisa salfa iyo malahan Jose Mourinho wuxuu soo qorayay saakay ama maanta oo dhan wuxuu soo sheegay in kooxda Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Barcelona in ay heshiis ka gaareen Bernardo Silva laakiin se wargeyska England ka soo baxa beeniyay waxaa la wax wada hadal ee Barcelona iyo Manchester City ay wada gaareen malahan Bernardo Silva arintiisa ma fadhiso hal season-ka soo socdo ma ku qaadan doona Etihad Stadium ma bixi doona cid sheegi karta malahan xidiga qandaraaskiisa 2 sano ayaa ugu dhiman in uu waxa ugu dhiman 12 bilood ugu dhiman Man City inuu sii joogo laakiin sareer Manchester City maankiina siiya in wakiilka weyn ee Barcelona uu joogo Manchester City Pep Guardiola ku riixaya leeyahay in Silva uu ka tago dhibaato hadda Silva Manchester City uga tago malahan halka wargeysada Ingiriiska soo baxan ee leeyihiin haalno dhibaato ku yaab waxaas waa been si xidiga looga diraa la rabaa meesha City waa u baahan tahay Silva waa ogtihiin kooxda Barcelona waxa ay heshay Roberto Lewandowski naftirkiisa inuu tago waxa ka dambeeya lagu leeyahay ninkan leeyahay Pep Guardiola ku riixay in uu tago marka Silva waa laga yaabaa leeyahay in halkaas uu aado aan sidoo duuba uga soo baxno marka Manchester City waxaana dul istaajisan saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Chelsea waa ogtihiin war farxad leh uma soo yeelay Chelsea
Timo Werner kooxdiisii hore ayaa dib loogu celiyay si oo macnaha amaah ma aha si joogto ah u qaateen marka Chelsea waxa leeyahay waa in mar walban waa idin sheegaa reer Chelsea saaxiibayaal 9 waa u baahan tihiin kubadda idin dhameystiro Sterling iyo markii kubadaha ay idin soo qaabeeyaan wax kubad dhameystiro sax ina gacanta ku soo dhigtiin waa loo baahan yahay intuu xagaaga macnaha suuqa wili furan yahayna ina keysatiin waa ku qasbatiin mideeda kaleeto Wesley Fofana ninkaas 70 milyan ay ku soo diiday Leicester City waxaa qoobka idin kula saarayso kooxdii reer France ee Paris Saint-Germain dalabkaas ayadana waxaa leeyahay qorshahaas oo xidigaas ayadana qayb ka tahay xeerta in idin kula dagaalanto loolan adag ayaad gali doontaa reer Chelsea halkaas uga soo gudubno transferga ama wararka suuqa kala iibsiga ku jirnaa maadaama koox walbo markii hal kulan dhaliisheeda soo baxday kooxda kubadda cagta Liverpoolna dhaawacyadeeda way sii socdaan Alcantara wuu maqan yahay waxa leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan waa in suuqa ku gashaan kooxda kubadda cagta Liverpool qadka dhexe ee Inter Milan ayay indhaha ku sii hayaan in ay keenaan Anfield halkaas ugu gudubno Liverpool waxaana geysan Tottenham yaa naga qabto hadda maanta saxiix ay dhameystirtay haddana waxa leeyahay waxa ku soo wajahan Memphis Depay oo waxa leeyahay Memphis Depay hanu reer Barcelona Memphis Depay hadda soo diraysiin Tottenham hanugu siinina because anaga reer Manchester City hadana Tottenham waa kooxda kaliya ee lafaha naga dhuuqdo Tottenham iyo Crystal Palace yaa nagu dhisin anaga Tottenham yaa la siinaa qabaa marka Aubameyang la xiriirina Chelsea lambarka laga bedelay Ferran Torresna lambarka laga bedelay lambarka 17aad dhab lagu siinay ki Aubameyang meel u socdo malahan ay ka dhigan tahay hadii Barcelona xidig oo ka baxayaan ama xidig oo ka tagay seasonkan waxaa bixi doona alma boorsidiisa kaamnu ka soo qaadanaya Memphis Depay oo Leicester ay isku haystaan Tottenham Hotspur ninkii ahaa xidigii Manchester City ka tagayay oo Ferran Torres lambarkii 11aad oo Ousmane Dembele wadin jiray Ousmane Dembele lambarka 7aad ma wadin jirno lambarka 7aad lambarka 11aad Ferran Torres lagu aaminaa leeyahay inkastoo meeshas balaayo isku yimaado boos uusan ka heli doonin halkaas uga soo gudubna marka saaxiibayaal wararka suuqa kala iibsida wargeysada ugu caansan kubadda cagta caawa ay ka qoreen waxaana dul istaajisan kooxda kubadda cagta Real Madrid maanta waa ay duushay waxayna dheelaysaa koobkii dheelaysaa UEFA Super Cup-ka markeedii koowaad iyo markeedii labaad ma aha dhowr mar koobka hore u soo qaaday taageerayaasha Real Madridna waxay ay rajeynayaan Eden Hazard-koodii la yaqaan inuu u soo laabto asagoo fit ah wiilkooduna u soo laabtay rajeynaa macnaha qaab ciyaareedkii Chelsea mabal helaaya Almeena inuu soo dhaweeyay rajeynaa reer Chelsea waa idin rajeynaynaa koobkaas haday qaadaanna dee koobka kalena ka fil in ay qaadaan saaxiibayaal ilaa gabagabada muuqaalka hadana la gaarteen adoo like saarin ha bixin channelka hadoo subscribe ku ahayn dhaho rukumo gambaleelkana furo si saaxiibo badan ay noogu imaadaan idinkoo kala ah walaashiina garab istaaga idinka baahan tahay khayr badan ay idinkaga tagaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh